بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا أصحاب كحرا كنال كنا عندها شعبك وبرنامج كان وحنقوم قاعد دري دي رد السياسة كل قلوي كلا أو برنامج سوى جديد عليه دون الله ما عسكره لكن أنا هو هرق وأنا مخاف دي رد السياسة وحنو دي رد صار دونا سياسة الصومالية maalmihii ugu dambeeyay iyo waxyaabihii la hadalhayay waxaan kaloo message u diri doonaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadduu Allah uu wada raali ka noqdo qoraalkeennii hore aan boggeena ku soo qorray iyo wareysigii ugu dambeeyay aan ka bixinay YouTube indhaha shacabka waxaan message ugu direynay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya laakiin galabtay midaan aan duubayno markii aan daawaday khudbadihii ra'iisul wasaaraha runtii waa soo dhaweynayaa waa nin daacad ah waa nin dhalinyaro ah waa nin aqoon-yahan ah ay ka muuqato diin badan dadka yaqaanana ay sheegeen nin ahludiin ah inuu yahay haddana siyaasaddu iyadaa iskale wajiye fara badan waxaan u daynaynaa waqtiga iyo waayaha iyagaa fasira qofka waxa uu yahay oo sheega marka shaqada sida dhabta ah loo dhaxgalo mid guud madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan kula dardaarmo gaar ahaan madaxweynaha waxa la isweydiinayaa Soomaalidu sidaan marar badan ba sheegay hadda waa iska wada siyaasi ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha MCC wada joogi doonaan qaar baa waxay ku leeyihiin 6 bilood afsi badan bay dadku qabaan qaar baa waxay ku leeyihiin sanad qaar waxay leeyihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa laba nin oo saaxiibo ah oo isjecel laakiin Soomaalida ka maamaahday oo waxay tiri laba isjecel wax isugu dar iyaga isnici dooneen marka hadday isjeclaayeen hadda waxba la isugu daray jacaylkiina hadda kaga sii faa'iideysataan kalsooni iyo soo dhawaashana waad guuleysanaysaan waa sii wada shaqeyn doontaan hadday nin toocsigii Soomaalidu ka maamaahday ay tahayna 6 bilood iyo sanadka leedin sheegay baa ku kala bixi doontaan taa marka waqtigan u deynayna oo noo fasiri doono waxaan rabaa inaan ku soo dhawaado message-kayga ra'iisul wasaaraha markii aan daawaday khudbooyinkiisa laba qodob oo kamid ah oo xasaasiyad gelinaya dadka isagana bii hore saddexaadnimo uu kaga hadlay mid waa markii uu la shiriyay groupkii Malaysia jaamacadda iyo ardadii markuu la hadlayay u sheegay inuu maaragtay uu soo gelin doono saaxa siyaasadda wali qaybta asaga xafiiskiisa ah marka halkaas waxaad dhihi kartaa madaxweynuhu waa daacadnimo hadlay kalgacalka iyo kalsoonida uu saaxiibadii u qabay ayuu u sheegay waxa calooshiisa ku jira marka muxuu hilmaansanaa oo xasaasiyadda abuuray inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yahay Soomaaliya oo 4.5 iyo qabaa'ilo iyo maamul goboleedyo wax ku qaybsatay oo ay soo wada eegayaan oo reer ahaan loo soo wada eegayo annaga maxaan heli doonaa marka ra'iisul wasaaraha markuu xiro group aan isku wax barasho ahayn markuu yiri halka xasaasiyad bay abuurtay waa qodob mar walbana ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha iyo wasiiradu madaxda markay hadlayso waxa fiican intaysan golayaasha imaanin inay khudbooyinkooda la soo qoro oo isha uu soo mariyo xataa hadduu rabo inuu keligii hadlo intuu qoro uu siyaasad ahaan ku soo fariisiyo inuu markaa warqadiisa jeebka gashado oo uu jeediyo waxa uu doonayo inuu markaa ka hadlo taa waa qodobka labaad ra'iisul wasaaraha maalin dhaweyd wuxuu taabtay in gabar Afrikaana oo weli gaala oo dharga gaaban xirato inay waardiyeyso meesha in xagga anagu dad islaameynu nahay oo markaynu xagga ka eegno xagga kala dhaqanka Soomaalida inuu ka eegno wax nagu qurux badan iyo wax aan istaahilna toona maaha markii uu si gooni ah anaga noola hadlay warkaas aan la gelinayn saxaafadana waa war fiican oo uga mahad celinaynaa nin dhaqan iyo diin wax ku hogaaminayo inuu dadku yimaado laakiin maadaama wadankeenu ay dadkiyaas uu sheegayaba ay amaankooda hayaan waxay u abuuraysaa cadaawad asagoo aan meel la gaarin markiiba waa la turjumay meel walba la geliyay fiiro gaar ah in la soo xiriirana waa dhici kartaa laakiin waa arrin meel u yaala ra'iisul wasaarahan waa inuu ogaadaa
hadda kadibna arrimahaas daacadnimada ah inuu ka digtoonaada labadaa fariin waxaan si gaar ugu dirayaa waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan kaloo rabaa ra'iisul wasaaraha inaan xasuusiyo madaxweynaha ayaan dhaw ra'iisul wasaaraha markii la magacaabayay intuusan soo bixin ka hor suuqa ayay soo gashay in la magacaabi doono ra'iisul wasaarahan oo dadkii kulay ku dhawaa madaxweynaha iyo groupkii meesha joogay ayaa warkaas soo gudbiyay haddana waxaa shacabka soo gaaraya Soomaaliyeed wasiirada la magacaabayo marka arrinkan waxaan rabaa inaan laba qodob ka iraahdo mid waxaan rabaa arrimaha xasaasiga ee dawladda siyaasaddu mar haddii ay banaanka u baxdo Soomaalidu maxay tiraahdaa hadal wuxuu ammaan yahay intuu afkaad uu ku jiro hadduu laakiin soo baxo adigu ma arrimisid dadkaas u dhaxeeya qof walba qolo walba sibaa loo fasiraya waan laga faa'iideysanaa siyaasaddu hadday intaadan adigu yoolkii gaarin ee banaanka timaado waa fashilanta marka barnaamijkaas inaad 10 oo kugu filaado tii hore ee kuwa kale aydan ku soo darin oo siyaasadda oo dhan aydan ka dhigin mid fashil ah oo suuqa taala taa waxa weeyaan waa iga dardaaran midda labaad waxaa jira wasiirro badan oo xasaasiyad ay ka qabaan ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba oo ku jiray dawladdii hore ra'iisul wasaaraha sidoo markii hore uu sheegay wuxuu yiri wixii hore waa cafis iyo waxa kama jiraan dawlad cusub baynu nahay buug cusub baynu furanaynaa marka anigu tala ahaan wasiirka ra'iisul wasaaraha waxaan ku siin lahaa in dawladda cusub uu dhisanayo dad cusub inuu ka dhigto intii xasaasiyadda laga qabay aadan dib ku soo celinin sababtoo ah waxaad la koobsanaysaa cadaawad baa la koobsan siyaasaddaadii cadow baad u abuuraysaa markaad wasiirro hore oo markii horeba kalsooni badan aysan Soomaalidu u qabin meelay joogtaba haddaad soo celiso waxaad bilaabatay oo dawladda aad ku bilowday cadaawad aad adiga gacantaad ku abuuratay taa waxaan rabaa inaan marka hore aan kala taliyo ra'iisul wasaaraha waxaa laga yaabaa waxaasoo dhan waa waxaad og tahay oo muddaad ku soo jirtay saaxa siyaasadda ninku cusubna maahid laakiin waa iga dardaaran nin weyn marka barnaamijkeena galabtay diiradda siyaasadda aan ugu magac daray marar badan oo dambana oo isku soo noqon doona annaga magaca iyada sidana intaasan ku soo gabagabeynaya aad baan idin salaam calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh